السلام عليكم. ما ogtahay in ChatGPT ay sabab u noqotay ayna ku kaliftay Google inay bixiso bilaayiin dollar si ay u soo saarto programkan loo yaqaano Gemini AI. Ma ogtahay in ChatGPT asal ahaan ay iska leedahay shirkadda Google waa ChatGPT-ga ay hadda doonayso in ay ka saarto saaxadda tartanka AI-ga. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay why Google needs ChatGPT. waa maxay sababta ay Google u lumisay fursadda dahabiga ah ee ah ChatGPT gacantana ay ugu gelisay tartamayaasha oo kula loolamayay saaxadda AI-ga. kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaalkeena maanta. magacaygu waa Injineer Cali Maamu. halkan naga daawanaysana waa Injineerkeena Cali Maamu. waxaan halkan kusoo gudbinaa muuqaallo la xiriira akhbaaraadka cusub iyo xogaha ku saabsan teknolojiyadda. haddii aad jeceshahay muuqaallo caynka oo kale nagu soo bir. mahadsanid. Google ayaa lumisay fursad cajiib ah 2 sano ka hor. 2 cilmi baare oo ka mid ahaa shirkadda Google ayaa soo saaray aalad u shaqeynaysa sida ChatGPT u shaqeeyo oo kale. balse amar ka yimid madaxda sare ee Google ayaa diiday kana hor istaagay in la soo saaro programkii ayagoo ku andacoonaya sheeganayana haddii la soo saaro adeegan ama programkan in Google Search-keedu uu qalqal ku jiro. maxaa yeelay waxay dhaheen sida loo isticmaalo Google Search taa oo aan ka sameeyno lacag aad u badan oo bilaayiin dollar ah xayisiimaha la tuso dadka markii ay wax ka baarayaan iyo markii ay adeegsanayaan intaba ayaa meesha ka baxaydo haddii adeegan aan soo saarno. labadan cilmi baare oo ka tirsanaa Google oo lagu kala magacaabo Dave Reuters iyo sidoo kale Noam Shazeer ayaa soo saaray adeegan. balse waxaa ka hor istaagay kana diiday maamulayaasha shirkadda Google ayagoo sheegay inay ku qanci waayeen qaabka ay wax u wadaan ayna u baqeen sida aan sheegnay Google Search-kooda. xilliga qisadan ay dhacayso waa sanadkii 2021 balse maxaa dhacay November 2023 waa 2 sano kadib xilligii ay diiday projectigan in ay soo saarto shirkadda Google. shirkadda Microsoft ayaa qaadatay go'aan geesinimo leh taa oo ay 2 sano ka hor iska diiday shirkadda Google inay ku dhaqaaqdo. Microsoft ayaa taageero u muujisay oo taageertay abuuraha ama soo saaraha barnaamijka ChatGPT waa shirkadda OpenAI ee wax ka aasaasay Elon Musk. sidoo kale waxay halka ku kordhisay aalado ama adeegyo kale oo uu iska lahaa Microsoft Bing oo u shaqeeya sida Google Search-ka u shaqeeyo oo kale. waxaa qalbi jab iyo madax xanuun iyo fooswareer iyo waaguna uu ku bariyay shirkadda Google oo 2 sano ka hor iska diiday projectigan. Microsoft-na waxay ku raaxaysanaysay buunbuuninta amaanta dhammaan waxyaabihii ka dhashay go'aan geesinimada lahaa ay qaadatay. balse Google inkastoo ay fursadii lumisay waa shirkad aad u weyn leh ila badan oo markaasi ay ka helayso adeegyada ay si degdeg ah u horumari karto teknolojiyadeeda qaybaha AI-ga ay kaga tartanto. muddo kadib ayay soo saartay baad oo markaas ay shaacisay inuu adeegani ku jiro tijaabo si la mid ah sida ChatGPT oo isla markaasi asagana ku jiray tijaabo. waa 2023 sanadkii hadda aan soo dhaafnay. isku soo wada duubo dhammaan caqabadahan iyo fulinnimadan ay samaysay Google ayaa lagu tilmaamaa dibdhigidii fikrad ganacsi oo ugu xumeed abad ay qaadato shirkadda Google. sidoo kale waa go'aan geesinimo leh ayaa lagu tilmaamaa inay Microsoft ka dulqaado barnaamijkaas. Google ayaa ku andacoonaysa oo sheeganaysa in asalkeedii lahayd barnaamijkan. hase ahaatee labadii cilmi baare oo xilligaa u soo bandhigay barnaamijkan waa sanadkii 2021 waa Shazeer iyo Dave Reuters ayaa shaqadii isaga tegay isla sanadkii maadaama niyad jab iyo qalbi xanuun ay ka qaadeen barnaamij ay muddo ka soo shaqeynayeen. asxaabtooduna ay markaa u sheegeen inuu wax ka bedeli doono habka dadka internetka ay wax uga baaraan iyo sidoo kale habka dadku ay ula shaqeeyaan kombiyuutaradooda ama ay u isticmaalaan. muuqaalkan iyo muuqaallo ka xiiso badanba halkan ayaan kusoo gudbi doonaa. haddii muuqaalkan aad ka heshay asxaabtaa la sii wadaag. mahadsanid.